soo jeedinaysaa talooyinkan hoos ku qoran mashaariicda socda ama dhammaystirmay waxa waajiba in madaxda gobollada iyo isuduwayaasha ay yeeshaan go'aanka u dambeeya ee xilliga lala kala wareegayo mashruuca si commissionku uu noqdo mid xaqiiqiya aan loona odhanin hay-ad hebel iyo aanay wax isku halaynayn u dhicin oo hay-adda la wareegaysa iyo hay-addii ka mas-uulka ahayd iyo howlihii gudba ay u taagnaada qodobka labaad guddida waxa uga soo baxday in dib u eegistii xisaab xidhkii iyo baadhitaankii uu sameeyey hantidhowrka guud in aan la wada gaadhin baadhistii ku habboonay dhammaan hay-adaha dowladda maadaama uu hantidhowrka guud keenay xisaab xidhkii 20 waqti ka horeeya xilligii laga filayay oo ahayd 30 Juun taasoo keentay taas oo uu keenay bartamihii Abriil 2021 guddidu waxay golaha u soo jeedinaysaa in hantidhowrku soo raaciyo xisaab xidhka dambe nidaamkii iyo habraacyadii uu baadhitaanka ku sameeyey audit procedures kaas oo ah inuu warbixin golaha ku siiyo wasaaradaha hay-adaha la baadhay xilligii la baadhay ciddii baadhay wixii lagala kulmay ama ka soo baxay baadhitaanadaas wixii u baahnaa in la dabagalo iyo ciddii loo xil saaray dabagaladaas guddidu waxay soo jeedinaysaa in xafiiska hantidhowrka guud laga helo macluumaadkii ka soo baxay baadhitaanadii la sameeyey iyo documentiskoodii oo faahfaahsan si loo helo tixraac lagu saxayo wixii sanadihii hore khaladaad soo baxay guddidu waxay soo jeedinaysaa in hantidhowrka guud ka keeno wasaaradda maaliyadda caddayn ku saabsan deynta qaranka cidda leh waxa lagu qaatay iyo xilligii la qaatay sida ay hadda ugu taal miisaaniyadda guddidu waxay soo jeedinaysaa in wasaaradda howlaha guud guryeynta iyo dhulka inay dabagal ku samayso mashaariicda horumarinta ee laga fuliyo miisaaniyadda qaranka taasoo aan ilaa hadda samaynin qiimayntii loo baahnaa lagana sugayo guddidu waxay soo jeedinaysaa inuu hantidhowrka guud baadhis ku sameeyo dhammaan wasaaradaha dowladaha hoose hay-adaha iyo wakaaladaha madaxa bannaan ee qaranka guddidu waxay soo jeedinaysaa in wasaaradaha hay-adaha iyo wakaaladaha madaxa bannaani keenaan xisaab xidh una soo gudbiyaan xisaabiyaha guud xisaab xidhadaasina waa gaargaara weeye halkaa loo fahmo guddidu waxay soo jeedinaysaa in kabka dowladaha goluhu ansixiyo ka hor inta aan la isticmaalin ama la kharash garayn sida 2019 kore usoo dhacday baa good example guddidu waxay u soo jeedinaysaa wasaaradda horumarinta maaliyadda inaanay qaadin cashuur ama takliif aan sharci waajibin golahuna aanu ansixin una ogolayn hay-ad kale qaadi karta ama wasaaradda maaliyadda ama cid kastoo kale aanay ogolaanin in cid kale waajib kale oo cashuureed la iska samayn karo waa sidaa macnuhu guddidu waxay soo jeedinaysaa takaaliifta ansaxa ah ee ay qaadaan qaar ka mid ah hay-adaha dowladdu ay soo geliyaan kuna soo daraan khasnadda dowladda ee wasaaradda maaliyadda kana muuqato miisaaniyadda qaranka guddidu waxay soo jeedinaysaa in mashruuc kasta oo ay bixiso madaxtooyada qaranku la soo mariyo guddida qandaraasyada qaranka guddidu waxay adkaynaysaa in la fuliyo soo jeedintii hantidhowrka guud ee samaynta diiwaanka deymaha qaranka iyo diiwaanka hantida raagta